بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا weli waxaynu ku jiraa qaybtii gogol dhiga ahayd baynu ku jiraa xalay waxaynu ka soo hadalay taariikhda laga qoray dowladda Cusmaaniyiinta iyo cidda ka qortay ay u badan yihiin iyo waxda maanta taariikhdooda caalamka lagu faafiyay cidda ka dambaysa sidoo kale waxaanu sheegnay xilligii ay dadka Turkiga la yiraahdo iyo muslimiinta isugu horeysay xiriirka ay yeesheen waxa kala soo hadal qaaday labadii dawladood ay bedeleen mamaaligtii iyo salaajiqadii saljukiinti marka xogaa saljukiinta baynu in yarba caawas dul taagaynaa saljukiintu waa dawlad weyn oo dawladii waaweynaa Turkiga ay sameeyeen kamid qabaa'ilka Turkiga ay sameeyeen qarnigii shanaad hijriga ama qarnigii 11aad mana waa dawlad jirtay 300 sano ku dhawaad kii 13aad kii 14aad waxa samaysatay dawladda Cusmaaniyiinta samaysantay iyaga marka imaarada yar markay ahayn iyo beelaha markay ahayn iyo ku sii mashquul maynay waxaynu ka bilaabay salaadiintii ugu waaweynaa ee aasaasayashooda ugu waaweynaa qabiiladu waxa la yiraahdaa aasaastay dawladda Saljukiyiinta qanaq qaaf nuun qaaf qanaq saddex xaraf qabiilada ay salaadiinta beesha ka soo jeedaan ana beela Turkiga way ka koobnayd oo badan laakiin beesha ay ka soo jeedeen salaadiintu suldaanka mu'assiska rasmiga ahaa ee dawladdan aasaasay waxa la yiraahdaa Taghirbek binu Saljuk binu Taqaq marka ama waa awowgii ama waa aabihii magaca dawladda ka laga dhigay Saljuk Taghirbekaasi dawladdoodana waxay ka aasaaseen meesha ay ku taal hadda wadankan Qarqiisiya la yiraahdo waa bartamaha Aasiya marka xilliyada xataa islaamka ay qabiiladan qanaqa la yiraahdo iyo qabaa'ilka kale ee saaxiibada ahaayeen ay islaamka xiriirka la yeesheen waqti fog ma ahayn baa la yiraahdaa yani waqtiga dawladda ay sameeyeen kama fogeen oo dhulka marka iyagu ay joogeen waxa ka jirtay dawlad loo dhan jiray Ghaznawiyiin loo dhanay oo nin Mahmud Ghaznawi la yiraahdo salaadiinteedii ugu waaweyn oo ahaa marka Ghazana waa meel 150 kilomitir u jirta magaalada Kabul Afghanistan halkaas caasimadu ahaan jirtay dawlad weyn oo halka ka jirtay طبعا iyaga laftoodu inay reeraha hayeen baa laga yaabaa Taghirbekaas marka aasaasiga ugu weyn ahaa xilliga ay dawladani marka aasaasmayso waxa dunida islaamka ka taliya oo gebigeedaba gacanta ku dhigay nimanka la yiraahdo Shiicada la yiraahdo dawladii Cabbaasiyiinta way taal daraatay way daciiftay magac bay u jirtaa laakiin qoys la yiraahdo reer Bani Buwayhiin la yiraahdo oo Shiicaba dawladda haysta khaliifkuna amarkooda ma diidi karo marka intay ku magacaaban Cabbaasiyiinta ku magacaaban reer Bani Buwayha xukuma inta ka soo hadhay oo Shaam wixii galbeed ka soo xigiya Masarana Ubaydiyiintii oo magaca Faadimiinta iyagu isku yaqaan Ubaydiyiinta nimanka la yiraahdo iyo dhulkaan haystay aasaasay dawladdii waa kuwaas gacanta ku hayay marka qarniga 11aad ama shanaad hijriga ayay Khurasan iyo dhulka ka dambeeyay webiga ninka Taghirbek la yiraahdo ka aasaasay markii wuxuu gacanta ku dhigay Iran Iraq dhulka Sham Aasiyada yar ama Anatolia waa dhulkan bariga Aasiya ku yaala Turkiga intii ay muslimiintu ka talinayeen caasimadiisu markii hore waxay ahayd Ray magaalo Ray la yiraahdo bariga Iran bay ku taalaa kadibna Baghdad baa noqotay caasimadii oo xaruntii dawladda noqotay laakiin Raydaas muddo dheer ilaa isaga iyo inanku adeerka ahaa Al-Barsalan isaga ka dambeeyay iyo taasa caasimad inta badan ayaa ahayd Baghdad waxay ahayd meel ay yimaadaan oo ay amarka suldaannimada ka bixiyaan bay ahayd marka ilaa dhulkii la oran jiray dhulka webiga ka dambeeyay Jayxun iyo Sayxun ilaa Aasiyada yar bay halka soo gaareen aakhirkii markii dambe waxay kala noqdeen kuwa waxa la oran jiray salaajiqada Persia oo kuwii weynaa waxa ka shisheeye ku hareen
kuwana waxaa la odhan jiray salaajiqada sham oo dhulkan suuriya iyo ku taala kuwii ku hadhay bay noqdeen. kuwana waxaa la odhan jiray salaajiqada rome oo xagga dhulkan iminka turkiga ku yaalla ku hadhay. saddexdaasay u qaybsantay inkastoo kuwa yar yaroo kalena ay markii dambe kasii farcameen. ninka daqar bek la yidhahdaa marka wuxuu u gargaaray dowladdii cabaasiyiinta ahayd oo la baabi'in gaadhay, wuxuuna dib u dhigay dowladda cabaasiyiinta inay burburto muddo 3 qarni oo kale ayuu dib u dhigay. 2 qarni ah, waa 400 iyo maxaan ku idhaahdaa dhowr iyo afartanadii 447 dowladduna waxay dhacday markii dambe 656 ba dhacday. yani 200 sanadood buu dowladdii dib u nooleeyay, naf buu geliyey. wuxuu dhulkii sham ka qaaday dowladdii faadimiinta iyo xoog ka qaateen. buwayhiintiina waxay ka xoreeyeen dhulkii ciraaq iyo wixii kale ay halkaas ay xukumayeen. baghdad markuu soo galay ninka la yidhahdo daqar bek markuu soo galay, yani ceebaha jiri jiray balo fiirsada, albaabada masaajidda la isla taagi jiray, cayda asxaabta la isla taagi jiray, asxaabta rasuulka halkaa lagu caayi jiray. kuwa la caaya soo ma garanaysaan kuwii waaweynaa weliba abubakar, cumar, caaisha yaa la caaya. asxaabtii rasuulka awliya ilaahi bay wada ahaayeen. haddaad wada jeclaanaysana wada jeclow, laakiin haddaad qaar cadow la noqoto qaarna aad jeclaato. waxaan shalay waxaan arkay wadaad shiica oo magaciisa hadda ma xasuusto, wuxuu soo qaadanayaa doorashada turkiga. marka wuxuu leeyahay cali baa wuxuu u noqday buu yidhi wax ay labada nina doorashada turkiga ugu waaweyn Kamaal Kılıçdaroğlu iyo Tayyip Erdoğan, cali bin abi talib bay jacaylkiisa ayay dadka ugu kala dhawaanayaan buu yidhi. marka Kamaal Kılıçdaroğlu baa isagoo hadlaya wuxuu leeyahay buu yidhi calawi baan ahay, cali bin abi talib baan anigu taageersanahay. kadibna waxaa hadlaya buu yidhi Erdoğan wuxuu leeyahay buu yidhi laa fataa ilaa caliyun walaa sayfun ilaa dulfaqaar. waa hadal ammaano cali bin abi talib loo jeedin jiray. kadibna hadalkii buu fasirayaa buu marka uu la yaaban yahay wadaadka shaacir wuxuu leeyahay subxaan allah, aali beytkii baa dowladdii shiiceen ahayd cilmaaniyada ahayd ee weliga diinta ka carari jirtay iyo aali beytkii hadda doorashada ku wadha ma oga inay dadka muslimiintii badankoodu dhammaantood ay wada jecel yihiin aali beytka wada jecel yihiin. aali beytka ciddii nacdaa xaggay tegaysaa markaa? aali beytka cidda ka hortimaadaay ama aali beytka cidda wax kale ku sheegtaay faadumo iyo xasan iyo xuseen iyo aabahood cali iyo jeclaan weyda xaggee u socotaa? cidda jeclaan weyda awliyada ilaahay maaragtay qoyskii rasuulka ahayd ee ahlu beytkii rasuulka ahayd xaggee u socdaan? dee islaamnimadoodaba sax maaha. qofkii jeclaan waayo islaamnimadiisi way kala dhiman tahay, way ka dhigan tahay. marka innaga haddaynu muslimiin nahay, yani ciddii kale wax kale sheeganaysa ha sheegato, caruurtii cali bin abi taalib uu dhalay ee ahayd 16 wiil iyo 19 gabdhood. saa ma taqaanaa in caruurtiisa 19 gabdhood iyo 16 wiil buu dhalay. kulligood waan wada jecel lahay, kulligood waan wada jecel lahay. way kala fadli badan yihiin sax. xasan iyo xuseen sayidaa shabaab ahli aljanna weeye oo rasuulkaa sheegay calayhi salaatu wasalaam. waana imaamyadeeni. maxamed bin xanafiya, hooyadiiba faaduma bint xanafiya la odhan jiray. marka maxamed bin xanafiya faaduma rasuul ma dhalin, faaduma kala dhashay oo faaduma bint xanafiya la yidhahdo. waa inamadiisi culimo waaweyn culimada muslimiinta ka mid ah. kulligood waan jecel lahay, laakiin in loo kala qabyaaladeeya maaha dee oo la yidhaahdo annaga midun baa na xiga. waa haddaad jeceshihiin ahla beytka iyo aad jeceshihiin xuseenun maxaad ugala dhex baxdeen? xuseen iyo tafiirtiisa maxaad halkan u dhigateen? oo xasan iyo tafiirtiisa iyo maxamed iyo tafiirtiisa iyo abubakar iyo tafiirtiisa inamadiisa abubakar baa ku jira, cumar baa ku jira. kuwaa lama soo qaadayo because waxay leeyihin magacii abubakar iyo magacii cumar bay leeyihin, lama soo qaaday. walow ay yaraan ku dhinteen oo qaarkood ay ku dhinteen dhibaatadii weyneeda dhacday sanadkii 61 yaziid bin mucaawiya uu sameeyey xuseen iyo qoyska oo dhanba uu ku wada laayay. fadeexadii weyneeda halkaa uu ku sameeyey karbala meesha la yidhahdo ay ku dhinteen
laakiin iyagu qoladan kale ee saaxiibadeena maxay xuseenun xooga u saarayaan xuseen muxuu kaga duwan yahay xasan waa laba wiil oo walaalaa labadooda hooyadoodu waa faaduma bintu rasuulillahi wey aabahoodu waa cali bin abi taalib xasan baa weyn labadooda xuseenna uu ka yaryahay haddaana soomaaliyana waxa weeye waa xasan yare iyo xasan xasanna waa xasan xuseenna waa xasan yare sababta maad garanaysaan xuseenuna imaamkii weeyaan xataa masaajidooda xuseeniyada ugu magacaabayaan markaas wuxuu guursaday gabadh uu dhalay Yazdijar uu dhalay buu guursaday oo ah beershiyaaniyada boqorkii beershiya ugu dambeeyey ee waqtigii dowladdii Cusmaan bin Cafaan kolkii Cumar baa la jabiyey laakiin markii Cusmaan bin Cafaan laga takhalusay laba gabdhood oo gabdhihiisa ka mid ahaa mid ka mid ah waxa guursaday Xuseen bin Ali baa guursaday midda labaadna waxa guursaday Maxamed bin Abi Bakar baa guursaday marka Maxamed bin Abi Bakar agtooda iyaga waxba ma waa in Abi Bakar matay Abi Bakarna waxa warkaan nin bilowgiisa horeba gaal ahaa wuxuu dhalay inay gaal ahaayeen waxay dhashay marka gabadha Yazdijar u dhalay ee Xuseen u guursaday Zayn al-Abidin bin Xuseen bin Ali bin Abi Talib min aad u cibaado badnaa culimada waaweyn ee muslimiinta ku jira sajaad lagu naanays jiray iyo dhalay marka waxay leeyihiin dhiig barakaysan oo ilaahiya ku jira wiilkaas sajaad dhinac wuxuu ka wataa dhiiggii rasuulku ka wataa qoyskiisa dhinacna dhiiggii qoyskii raasasaan oo ilaahi ahaabuu ka wataa bay leeyihiin marka halkaan baa laga abtirinaya ciddii kaasi dhalay uunba iyaga u ah cidda kale uma aha marka adugu halkaa calaa kulli xaal asxaabtooda la caayi jiray ninkan Daqarbeek maalinta uu Baqdaad soo galayna sheekhii qolada shiicada oo la odhan jiray Abi Cabdillahi al-Jallaab buu dilay Baqdaad buu ku dhex dilay maadaama uu nin xadgudub badan sameynayay ahaa si fiican buu khaliifka Cabbaasiyiinta al-Qaa'im bi amrillahi loo odhan jirayna u soo dhaweeyey waxa uu dharkii maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa taajkii dowladda Cabbaasiyiinta agtiisana wuu fadhiisiiyey naanayso fara badanna wuu bixiyey oo ay ka mid ahayd Ruknuddin Daqarbeek as-Suldaan Ruknuddin Daqarbeek marka magacaasaa loo amarna wuxuu ku bixiyey khaliifka Cabbaasiyiinta al-Qaa'im bi amrillah lacagta dowladda Cabbaasiyiinta isticmaalaysa in magaca Daqarbeek lagu qoro khudbadda masaajidda in isaga loogu duceeyo Baqdaad iyo dhulka kale oo dhan marka kolkii ay ka takhaluseen qoyska reer Bani Buwayh loo odhan jiray xoogga ku haystay dowladda ayay noqotay Daqarbeek wuxuu ahaa shakhsiyad awood badan maskax badan geesi ah nin mutadayina xalaal miirad ah cadaaladiisu ay fara badan tahay aad ugu gargaara shacabkiisa iyo dadkiisa ciidan xoog leh iyo dowlad xoog lana uu diyaariyay marka halkaa Baqdaad ama Suuriya ilaa iyo xuduudka Shiinaha dowladdaas oo dhisay xiriirka marka al-Qaa'im bi amrillahi iyo u dhaxeeya suldaankaas Daqarbeek u dhaxeeya aad buu si adkaaday kadib markii gabadh uu adeer u yahay suldaanku ninkan Daqarbeek la yiraahdo caruur ma dhalin waxa caruur ma dhalin taariikhdu soo qorayso marka gabadh uu walaalkii dhalay oo Jafri la yiraahdo Jafrigaasi waa Alab Arsalaan aabihi ama Jafri ba qaar yiraahdaan tixraacyada turkiga qaarkoodna waxa qoraan tashaagari bay qoraan ma Jafri be uuna ka weynaa ninkan suldaanka Daqarbeek uu ka weynaa daahan gabadh uu dhalay ayuu al-Qaa'im bi amrillahi guursaday maxay noqdeen seediyay noqdeen Daqarbeekna wuxuu guursaday gabadh uu suldaanku dhalay ma dhici jirin badanaa nimanka salaadiinta turkigu inay guursadaan gabadh carabiyada inay guursadaan oo qoyska khilaafada ka mid ah laakiin Daqarbeek isaguu guursaday nasiib darro ma una sii noolaanin
uu geeriyooday markuu gabadha guursaday wax yar kadib uu geeriyooday habeen jumca bisha rabadaanna ay 8 tahay ayuu geeriyooday sanadkii 455 ama 1062 ayuu geeriyooday xilligaa uu geeriyooday daqar bagdaadis waxay ahayd 70 jir bay ahayd 70 jir buu guursaday iyo ku dhintay iyadoo dawladuna ay dhulka ballaaran ee tilmaanay ay ka jirto waxa isaga bedelay wiilku adeerka waa Maxamed la yiraahdo laakiin lagu naanayso Alab Arsalan waa magac Turki ah macnihiisu wuxuu noqonayaa libaaxi geesiga ah uu noqonayaa marka la sida kale loo fasiro marka odayga Jeffrey ama Tashaqari wiilal dhowr u lahaa wiilashiisa waxa kamid ahaa Qawardi Alab Arsalan iyo Suleymaan yani waa saddexda iyagu waaweyn dawladda isku qabsadeen odaygan daqar beek marka wuxuu oran jiray haddii aniga taydii ay noqoto oo aan geeriyoodo waxa dhaxal kale wiilka Alab Arsalan baa leh dama uu arkay isagu marka inuu yahay nin geesi ah cadaalad ay ka muuqato shacabkuna ay aad u jecel yihiin nimanka kalena waa uu ka ilaalin jiray oo nimanka kale wax laga yaabay in qaarkood ka weynaayeen isaga khilaaf waa markaa ka yimid markii uu geeriyooday maadaama nin kasta taageerayaal uu leeyahay wiilashii walaalaha ahaa marka khilaafku muddo yar qaatay laakiin Alab Arsalan aakhirkii dawladii isaga la wareegay isaga gacanta ku dhigay muddo 7 sanadood waxa la yiri wuxuu ku mashquulsanaa dawladda gudaheeda sidoo uu hagaajin lahaa dib ugu dhisi lahaa marda haday walaalkiina isku khilaafeen walaaladiina isku khilaafeen oo dadkuna ay la kala safanayaan waxa kaloo bilaabay intii aanu isagu dagaal iyo waxyaabo kala sameeyay dawladihii la jaarka ah dawladiisa dawlad boqortooyada Armanka dawladda la yiraahdo Karaj ama Georgia iyo dawladii Byzantine weyneed saddexdaasiba xuduudada way isgaareen dad ducaado u diray dhulkooda oo islaamka ku sifaafiya dhulkooda islaamka gaarsiiyay si hadhow hadii ay noqoto in la isoo yimaado ay u dhacdo maaragtay in la isaga caabiyo markuu dawladiisa gobolada ka koobneed ba gacanta ku wada dhigay amnigeediina uu sugay sidoo isagu doonayay dawladdu uu isugu wada hoos keenay waa nin aan ka sheekayn doono oo wasiir oo aad u la yaab badan oo aad u aqoon badan oo aad u siyaasad badanina ilaahay uu u sahlay oo dabcan dadka la shaqeynaya adeerkii la shaqeynaya marka adeerkii la shaqeynayay oo laga yaabaa inuu da yaraa oo saraakiisha yar ka abu ahaa laakiin markii Alab Arsalan wuxuu noqday rag waaweyn buu noqday nidaamka mulki baa lagu naanaysi jiray magaciisa Hassan bin Yaqub laakiin magaciisa la yiraahdo nin Beershiyan oo ahaa laakiin aad u aqoon badan aad u siyaasi ah aad u khabiira ayuu ahaa gacanta markuu ku dhigay wuxuu bilaabay marka inuu dawladihii uu jaarka la ahaa gaar ahaan wuxuu bilaabay dawladii Faadimiyiinta ama Ubaydiyiinta la oranayay inuu dhulka Shaam ka qaato Dimashq uu ka qaado Qudus Falastiin uu ka qaado magaalada Casqalaan baa u soo hadhay marka iyaga oo ah albaabkii laga galay Masar taa baa u soo hadhay intii kale oo dhan uu ka wada qaaday sidoo kale Xalab oo ay ka jirtay dawlad Shiica oo loo jiray dawladda reer Ala Mardas oo markaa uu madax ka ahaa Maxamuud bin Saalax bin Mardas ayuu isagiina qabsaday marka ninkan wuxuu kaga duwanaa adeerkii ninka Shiicada ah ee meel maamula hadii uu intuu qabsaday meeshii yiraahdo anu adaan ku taageersanahay khudbadaydan waxaan u bedelayaa tii Cabaasiyiinta loogu khudbadeynay adigu meesha xukun buu ku oranay kama qaaday culimadiisana wuxuu ku oranay wixii khalkhalaad u leeyahay ka sax oo la dooda marka ninkii sidaas uu isagana uu ku wareejiyay nin la yiraahdo Atas bin Awq la yiraahdo waa ninka Shaam qabsaday waxa uu u diray ilaa Qudus iyo dhulkaas uu u diray waxa sanadkii 462 waxa uu yimiday waa isla sanadkan oo adeerkii geeriyooday waxa uu yimiday ما شاء الله بيلي حدك ملا ما هنا ذلك مركو جريودي واحد تضبي أفرتن كيو جريودي ستيدي أفرتن كيو جريودي دوري 8 سنة كده وحوي مدي إرج كي مدي مكة
oo uu soo diray waaligii Maka oo la yiraahdo Maxamed bin Abi Hashim uu u sheegay suldaanka in khudbadii masaajidka barakaysan ee Maka al-Mukarrama laga bilaabo hadda isaga Alab Arsalaan iyo khaliifka loogu khudbadaynayo la iskana daayay wixii kale ee maaragtay dawladda Ubaydiinta oo hadda Maka iyo Madiina halkaas loo simanayay marka wuxuu siiyay ninkii wuxuu siiyay lacag dhan 30,000 diinaar waa lacag dahab oo aad u fara badan wuxuu ku yiri hadii uu yeelo xaakimka Madiina uu sida yeelana 20,000 diinaar baan isagana siinaynaa buu ku yiri dhul furashadaas marka dawladda Roomaanka ama Byzantiinta iska horimaad yar yar baa dhici jiray gaar ahaan dhulkan la yiraahdo Anatolia ama Aasiya yar oo niman saraakiil aad u adag oo dawladda Byzantiinta kamid ah aad u dhib badan dadkana dhiba hadiye jeerna shirqool iyo balaayo ka dhaxwada maaragtay dawladda dhexdeeda ayaa meesha joogi jiray marka iska horimaatina mar walba dhici jiray iska horimaatinadaas iyo dhulkan uu qabsaday Georgia uu qabsaday Armenia uu qabsaday dhul weyn buu la wareegay waxa ay dhibtay boqorkii Byzantiinta oo la oran jiray Romanius Diganos ama Domanius Diganos لكن تحرعيده بدن كود waxay qorayaan Romanius Diganos kii afraad bay ku darayaan wuxuu go'aansaday marka boqorkaasi inuu dhulkiisa difaaco dawladana uu la dagaalamo sanadkii 463 hijriga oo ku beegan 1070 waxa dhacay dagaal caan ah oo la yiraahdo Malazakert oo labada dawladood dhaxmaray dawladda Seljuukiinta Alab Arsalaan hogaaminayo iyo dawladda Roomaanka oo Diganos hogaaminayo Diganos Romanos hogaaminayo Ibn Kathir wuxuu leeyahay وفيها أقبل ملك الروم ديغانوس في جحافل الأمثال الجبال من الروم والكرج والفرنج بقر كي الرومان وحلي مدي عيدمو بورا أدمو دبور تربطني waxay ka qaban buuro madowgooda iyo soo socdaan oo Room iyo Karaj iyo French ba ka kooban buu Karajku waa jooga qoladaas Georgiinta weey wuxuuna go'aansaday buu qabaxullah inuu islaamka iyo ahlkiisa baabiyo wadaadada waaweyn ee isaga la socday wuxuu ku yiri Baghdad baan idin siiyay idinka hadama gaarin Baghdad wari mana garan ninkan si fiican ma yaqaan ninkan uu ku sii duulay ninkan waa isla kibirsan yahay oo si fiican uma yaqaan waxa kale uu yiri ninka khaliifka la yiraahdo hadaad qabataan wanaag kula dhaqmo oo isagoo nool iyo maartay ka dadka ragii dawladda isla soo qaar buu Ciraaq si qaar buu iyo Khurasan si qaar buu Sham si qaar buu meel buu leexiyay quraanku wuxuu oranayaa buu Ibn Kathir لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون وان كو دارتاي waxay ku sakhraansan yihiin waxay ku mashquulsan yihiin sakhraanimadooda iyo ku halaysan وقال النبي لوط عليه السلام markii ay qoladii u timideen malaa'iktiina ay u yimaadeen malaa'iktiina inama qurux badan oo agaayeen ay ku lahay warna dadka oo daniman xumaansan oo caalim Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik al-Bukhari oo kala helay maxaan malaynaysaa ciidankiisu ma badna 20,000 30,000 kama badna ilaalay ahaayeen baa la yiraahdaa ciidan oo wuxuu ugu tala galay inay dhul ka cirifyada dawladdiisa oo soo maraan kadibna ay u noqdaan xaggii ay ka yimaadeen Ray iyo Baghdad iyo dhinacooda isaga laabtaan kana ciidanka uu watay 200,000 kama yara uu soo diyaar garoobay wuxuu codsaday Alab Arsalaan ciidankan farabadnidooda markuu arkay oo inuu wada hadda karaa anna maanta iska noqdo adiguna iska noqdo ma jirto buuri ninka intaas oo ciidan wata koox dheer sii deynay sidii uu suldaanku yeelay maalinta markii khudbada maalintii Jimcaha ahayd Arbaca Khamiis Jimcihi maalintii saddexaad ayuu faraskiisa ka degay wuu sujuuday carro waliba ku sujuuday wajigiisa oo dhamma wada carro noqday ilaahay buu aad u bariyo guul buu weydiistay
kadibna wuxuu raggiisii ku yidhi maanta oo kale cid suldaana ama awood leh oo idin amri karaysaa ma jirto qof walowba xor baad u tahay saacaddaa laga bilaabo kii aan doonaynin inaad dagaalka iskaga tagto isagu marka wuxuu sameeyey faraskiisi iyo dabada sayn faras sayn buu leeyahay farasku soomaalida turkigu dhaqan noocaas oo kale leeyahay faraska sayntiisii buu guntay gacantiisu ku guntay galkii seeftiisa iyo wixii boosashku qaadanay oo dhanna wuu tuuray inaa faras guntida dabadiis waxay ka mid tahay dib dambe uma soo noqonay seefta galkeeda haddii la tuurana seefta degal lagu rida hadeediyo ma jirin askartiina sidii bay wada yeeleen nin walba faraskiisii buu dabada guntay sayntiisii guntay galkii seeftana uu tuuray dagaalkii baa la galay muxuu ilaahay ka qadaray meesha tiro badan baa ku dhimatay meesha oo ciidankii reemaan diganoosu watay isagiina noloshaa lagu qabtay yaa qabanaya wiil yaroo biisanta yaa qabanaya weli boqorka oo ciidamada ka mid a suldaanka ilaa ciidankan suldaanka dad ba carab baa ku jirta turki baa ku jira roomaan baa ku jira ku yaroo roomaana oo shaqaalihii ciidanka ka mid ahaa yaa boqorkii qabtay kolkaasuu suldaankii hor keenay suldaan waa ka waan keenay buuli ma roomaan waad soo qabataa nool haa isagii baan ku wadaa marka wuxuu ku yidhi maxaad u malaynaysaa inaan aan kaa yeelayo ama aan kugu samaynayo marka waxay yidhahdaan bahalkan muxuu ahaa waxaa jirta turkidu dhaqan ay leeyihiin iyo roomaankii oo waxay ku dagaalameen budad bira ah oo madaxana ballaadhan oo kuuskuus leh xaggana ul weyna taasoo kale suldaanku watay buu 3 jeer halkaas kaga dhuftaa la yidhi markuu qabtay ninka boqorka markaa iyo 3 jeer sidaa isugu dhuftay maxaad u malayn buu yidhi markaa inaan kugu samaynayo markaas waxa laga yaabaa inaad disho ama wadamada dhulkaaga ay warwareejiso oo tiraahdo waa boqorkii baan soo qabsaday aad tiraahdo ama inaad lacag iga qaadato oo iska kaysii dayso waxaan go'aansaday buu inaan saka cafiyo lacag ka qaato waxaan go'aansaday inaan lacag ka qaato iska kaasii daayo marka 500,000 diinaar baa laga qaaday dadku way isweydiiyaan marka waxay yiraahdaan dawaagan inay isweydiiyaan baa laga yaabaa raggiisu alab arsalaan maxaad ninkan u sii deynaysaa mar hadduu gacanteena soo galay waxaa jira boqorro kale boqorka George oo kale uu qabtay ka Armenia oo kale uu qabtay markii dambe buu xidhay kuwa waxbuus buu ka dhigay markaasuu walaalkii ama inankiisii iyo boqorka meesha ka dhigay dadii hoos timaadaan buu ma laguma khasbay diin iyo sheekada laguma khasbay siyaasad ahaan in dad maamulkayga hoos timaadaan waa fiicantii dadii hoos iman weydaana daydankeedii inta Allah marka wadadu way isweydiiyeen xidhaa lacag intuu ka qaatay inuu iska sii daayay maxay ka dhigan tahay muddana way wada joogeen oo meesha uu ciidanku deganaa uu ku hayay waxay ka dhigan tahay ninka reerkiisu ma aaminayaan hadeed Constantinople marka uu imika ku noqon yiraahdo waa la dagaalami waxa la odhan waa naceeys ciidan inta leegbad ya baabiis adiga maxbuus markaad lacag intaad bixiso soo noqoto warar naga tag waxba timitiid waa la odhanaya markaas wuxuu yiri iyagu inay isku mashquulaan ma rabaa buu inta iyagu isku mashquulsan yihiin inana inaynu wax fara badan qabsano markaa sidii bay u dhacday asagu wuxuu ku daray ciidan buu ku daray maxaan ku yiraahdaa wuxuu siiyay rag si kaxeeya waliba la isaga 500,000 soo lagama qaadin 10,000 diinaar buu sahay uga dhig uu siiyay isagii iyo intii la socotay ciidankiisana wuxuu daray wuxuu ku yiri inta dhulka inagu aynu xukunno ka saaro oo kaxeeya ciidankiisina qayb baa raacday wada hadhow hadda seefaha waa laga wada qortay laakiin marka lagu wareejinayo seefoodi waa loo soo celinayaa hubkoodi waa loo soo celinayaa ciidanka kaxeeyay ee boqorka wada waxay wataan calan ay ku qoran tahay laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ku qoran tahay ayaa loo dhiibay warkaasi muna gaadheen caasimadoodii uu gaadhaya dabcan uu tagaya marka iyagu markay ogaadeenba ninka walaalkii oo Augustus iyo xasaas la oran jiray baa laga dhigay boqor
markuu ogaaday inuu soo daayo lacag ka qaatayna wuu diiday inuu waddankaba soo galo kana ciidan buu qaatay kana ciidan labadoodii baa iska hor yimid markaa siduu sheegayay baa dhacday des marka Alab Arsalan saasuu uga guulaystay ciidankaas isagoo dabcan dee wixii loo baahnaa diyaar garowgii loo baahnaayo oo dhan ba sameeyey alla barina sameeyey culimadii la socotayna sidaas uga faa'iidaystay Alab Arsalan 10 sanadood kadib ayaa la dilay oo waxa dilay nin maxaan ku raahdaa la oran jiray Yusuf al-Khuzrami qolooyinkii de aaminsanaa madaahibta kale aaminsanaa baa dilay bishii Rabiicul Awwal sanadkii 456 ama 1072 magaalada Marawi baa lagu aasay qabriga aabihii isaga inankiisii baana markaa noqday oo Malik Shah la yiraahdo yaa noqday suldaan ninkan la yiraahdo suldaan Alab Arsalan haddii akhlaaqdiisa waxyaabo kamid aan soo qaadan waxa kamid ahaa wuxuu ahaa nin naxariis badan gaar ahaan dadka fuqarada la yiraahdo aad ugu naxariis badan buu ahaa hadii jeer alla bari badan oo ducada Ilaahay aan ka tagin waxa la yiri maalin buu magaalada Marawi wuxuu ku arkaa la yiri dad fuqara oo isna markaa malaha wax uu deesiyo xilliga muuna haynin aad buu ooyaalay hadlooys dad fuqara oo aan arkayo oo aanan hadda wax si aan siiyo aanan u haynin wuxuuna weydiiyay Ilaahay buu weydiistay Ilaahow fadligaaga adigu dadka wax ku maaragtay ku kaaftoonsiigu aad nin sadaqa badan buu ahaa wuxuu bisha Ramadaan oo kale sadaqa ahaan ula bixi jiray 15,000 diinaar ayuu la bixi jiray diiwaankiisa waxa ku jiray dad fara badan oo fuqara ayaa ku jiray oo dawladdiisa dhinac walba kaga nool oo lacagta markaa loo geyn jiray walaal hebelka u geeya ka kale u geeya mar waxa loo sheegay in wasiirkiisa Malik Shah xoolo badan uu haysto oo ninkan aan sheegaynaa maartay mar baan ka yar hadli doono xogaa qayb baan ka yar hadli doonaa isaga laftiisa in aad u la yaab badan buu ahaa uu yeeray wuxuu ku yiri marunba waxa la iga ka sheegay inaad xoolo fara badan oo gooni ah adigu leedahay maybe marka wasiirku marka nin aqoon-yahan oo aad u cajaa'ib badan baa wuxuu yiri haduu qofka warkan iga ka keenay run sheegayana waa deesideeda haduu been iga sheegayana Ilaahay ha u dambi dhaafo guuriyay meel ka dhaca uu sameeyay haduu been iga sheegay marka de markii la baaray la ogaaday intii dawladdu ogtahay wax ka badan oo haystaa ma jirto wax ka badan oo haystaa ma jirto marka nin noocaas ayuu ahaa oo aad u daacad badan oo alla ka cabsi badan ayuu ahaa inankiisu markuu la wareegay Malik Shah dawladdii markuu la wareegay oo aabihii uu geeriyooday kolkii waxa ka hor yimid adeerkii Qaaward oo tan soo sheegaynay markii horena aan sheegaynay walaalkii waa iskhilaafeen aan lahayn oo dhulka Karmaan Iiraan iyo wixii ka dambeeyay xukumi jiray dagaal baa labadoodii dhex maray Qaaward baa la jabiyay waana la dilay adeerkii uu dilay marka 73 waa sanadkii uu geeriyooday suldaanku Malik Shah wuu isku hayay muddo isagu dawladda laakiin isaga dabadii dawlad sii jirtay oo sii haysatay ma jirin oo dawladdii way kala furfurantay isaga walaaladii iyo isaga ilmaadeeradii iyo saas markuu Malik Shah geeriyooday dawladdu waxay noqotay dawlad kala furfuratay bay noqotay waxaan tagaynaa markii nin leeyahay ninkan ra'iisul wasaaraha ama wasiirka koowaad ahaa nidaamul mulki loo oran jiray nidaamul mulki labadanba wasiir buu noqday Malik Shah iyo Alab Arsalan labadaba ninka asalkiisu wuxuu ahaa la yiraahdaa Tuus buu ku dhashay Iiraani buu ahaa
dahabi wuxuu yidhi wuxuu ahaa wasiir weyn nidaam almulkina waa magaca loo naanaysta loo yaqaanay lagu naanayso wey qawaamudiinna waa lagu naanaysi jiray nidaam almulkina waa lagu naanaysi jiray magaciisu marka wuxuu ahaa abu cali xasan binu cali binu isxaaq aduusi wuxuu ahaa buu yidhahda imaam dahabi nin caaqila siyaasi ah khabiir ah aada u wanaagsan nin diinla ah xishood badan ah majlis golahiisa uu ku camiran yahay buu yidhi dadka xaafidul qur-aanka iyo fuqahadu ay majliskiisa goor walba fadhiyaan waxa uu ka sameeyey magaalooyinka baqdaad mid kalena naysaabuur mid kalena duuso magaalada ku dhashay ahaa iskuulluu ka sameeyey marka iskuullada sow imika ma jirto nidaama ma lihin dugsiga hoose intaasaa la dhigtaa dugsiga dhexe intaasaa la dhigtaa dugsiga sare intaasaa la dhigtaa adduunka waa lagu kala duwan yahay qolowla tirada u qabata soo maa ninkanaa bilaabay carabiga waxaa lagu yidhahdaa madaaris nidaamiya nidaamiya xaggee laga keenay nidaam almulkiga wey baqdaad buu ka sameeyey baqdaad ragga dhigi jiray ma garanaysaa markaa baqdaad iskuulka uu ka sameeyey xujatulislaam ninkii weynaa ee qarnigaa shanaad la yidhaahdo waa dee dadkii abulxaamid alghazali abulxaamid alghazali markay taariikhdu soo gaadhay kun iyo boqol iyo afar boqol iyo adigu uun inta aanu dhimanin alab arsalaan uu iskaga tegay iskuulka waxaa dhigan jira la yidhaha 70,000 oo ardaya iskuulka baqdaad ku yaala waa iskuul boodhan ah dowladdu ay lacagta bixiso macallimiinta dhigtaan oo Ghazali abulxaamid alghazali iyo walaalkii axmed oo kale ay dhigaan yaa bedelay markuu ka tagay isagu axmed dabcan axmed uu dhigay laakiin sheekh aad wada garanaysaan oo sheekh cabdulqaadir jiilaani la yiraahdo ayaa isaguna ka mid ahaa markii dambe culimada waaweyn ee madar iskuulka dhigi jirta ka mid ahaa marka iskuulada carabiga saasa lagu dhaar iskuulo nidaamiya dugsi hoose la dugsi sare marka laga sheekaynayo hal ninkaasaa bilaabay hadhowyaan lagu odhanayno mid xaggan reer galbeedka oo magac kale baa bilaabay oo iskuulada sameeyey laga yaabaa in sanadaha la dhigdhiganayo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare la xidha ay xadideen dadkaas laakiin ninkii bilaabay kaas waa marka labadaba u noqdaan nidhi sidoo kale malik shah wuxuu u tilmaamay in siyaasaddu isbedbedesho waa marda inankii dambe ee malik shah siyaasaddu way isbedbedeshaa buu ku yidhi dadka umarada iyo taliyayaasha ciidamadaada rag diin iyo akhlaaq leh ka dhigo macnaa qofka diinta iyo akhlaaqda leh muxuu sameynayaa wuxuu iska ilaalini dee isagu inuuna dadka ku xadgudbin isaga haddii lagu xadgudbin ma dul qaadan karo waa is ilaalin karaa laakiin isaguna inuuna xadgudbin kuwaan diin iyo akhlaaq lahayn dad meesha keentana berriba shilmad baatil doona la siin karaa ama isagiiba damac la gelin karaa marka kuwaasoo kale ka dhiga buu ku yidhi siyaasadiisaasina marka way soo baxday oo waxaa ka mid ahaa ragga uu malik shaah doortay aaq sanqar waayo waa nuuraddiinkii aynu kusoo sheekeynay salabiyiinta la dagaalamay nuuraddiin iyo cimaaduddiin aabihii de nuuraddiinna awowgii waa ragga taliyayaasha ciidamada ka mid ah xalab iyo diyaar bakri iyo xukumi jiray buu ka mid ah ee ibnu kathiir yidhi waa aaq sanqarka ibnu kathiir wuxuu yidhi boqorada ninka ugu taariikh wanaagsan ee ugu deeqsisan ee ugu akhlaaqda wanaagsan buu ahaa buuri cimaaduddiin buu dhalay ninkaas salabiyiinta kuwii la dagaalamay waa ragga uu tilmaamay ninkani ee uu yidhi raggaasoo kale ka dhigo waa laga yaabaa inuu madrasada ka soo baxay sidaasoo kale kolkii dambe baatiniyiinta dilay 520 ninkan la yidhaahdo nidaamulmulki nidaamka dowladda wuxuu u sameeyey xoolaheeda qaabka loo kantaroolayo siyaasadda dowladda sida loo maamulayo dhaxalka say u kala maaragtay qoysku ay u kala leeyihiin yani inuu noqdo de isagu noqdayba qofka keliya ee taladiisu had iyo jeer maaragtay la qaato u noqday
saasoo ah waxa kaloo ahaa nin cilmiga iyo culimada jecel san hadda sheegayno iskuulada iyo culimo waaweyn oo ay ka soo baxeen Abul Hamid ay ka dhigayeen Abul Hamid al-Ghazali iyo Abul Hasan Muhammad bin Ali al-Wasiti culimo fara badan ay ka mid ahaayeen marka nin noocaas oo kala ah ayuu ahaa ninkaas wasiirkiihi oo wuxuu isna geeriyooday 485 maalin khamiisa bisha Ramadaanna ay 10 tahay xil la afuray maghribna ay tahay waxa uu dhaqan u lahaa la yiri marka Ramadaanta la afurayo gurigiisa horteeda ama beerta gurigiisa ayaa waxa la dhigi jiray cunto iyo cabitaan badan marka dadka wadada marayo dhan baa la soo leexin jiray waxa la oran jiray kaalay guriga wasiirka ka afura yaa la oran jiray mid baa iska soo dhigay marka qoladii baadiniinteed la oran jiray waa iska soo dhigay mid afuraya oo miskiina hoostana midi sumaysan ku soo qaatay marka afurka loo fariisana uu ku dhufto mididii uu ku dhufto sidii uu ku dhintay marka sheekha weyne nidaamul mulki ah marka barordiq badan baa loo sameeyay waaga marka uu dhintay wax fara badan baa laga qoray oo maaragtay isaga lagaga hadlayo ugu dambeyn waxaynu soo gaadhaynaa dawladii la oran jiray Seljukiyiinta oo soo gaadhay aakhirkii meeshii ugu dambeeyay qofku waxaan hadii uu gabowga iyo da'da iyo xanuunadu waa meel hadii uu qofku marka inta hore ee cilmigiisa uu ka soo faa'iideystay xagga dambe ka anfacaysa dawladuhuna waa saas oo kale hadday marba kolku xukunka dadka yimaada ay noqdaan dad aan macnaba lahayn ay noqdaan oo xukunkiiba inuu isagu uu ni leeyahay oo dadkan ay yihiin wax uu isaga adeegayaal wada cadaaladii khalkhalo galo waxay iska noqonaysaa dawladii marka khalaas way noqonaysaa marka dawladii waxay weyday raggii hore oo dhan bay weyday waxay dawladii marka noqotay inay ay burburto oo ay meesha ka baxdo sidaasina ay marka ay ku bedesho ay ku bilaabanto dawladii Usmaaniyiinta marka dawladdan waxyaabaha riday lafteeda waan eegi doonaa waxa kamid ah walaaladii iyo adeeradii iyo ilmaadeeradii iyo ilmaabtiyada oo xukunka gobolba isku qabsada qaanuun la raacaan lahayn oo taa uu nidaamka mulki xataa u dhigay Malekshahay marka uu sheegay oo lahaa dad qofka ku haboon xukunka u dhiiba waxa kale oo kamid ah dumarkii soo kala iyaguna xukunka suldaanku waxa laga yaabaa 3 dumar 4 dumar iyo kuwo maaragtay adooma inuu leeyahay mid waliba inay ilmo dhasho mid waliba ilmaheedii la rabtaa inuu xukunka qabsado mid waliba taageerayaal ciidanka iyo wasiirada ka dhaxsanaysan iyagii baa marka qasriga dhexdeeda qasrigu waa meel saan la isku daba wareegaya marka oo kan shir qoolayo tan shir qoolayso kan ka kale midba miduna soo eeganayo midna miduma naxay mid kastaana isagu ba xaq ku taagan oo marka waxyaabaha noocaas oo kala cudurkaas dawladda Usmaaniyiintana aakhirka uu ku dhacay inay dumarku maaragtay xukunka soo salaadiinta waaweyn markay joogan way kala qabanayaan waxa soo dhanba xukunka yaa horta loo bay oranayaan xukunka cid waxa la garanayaa halkaas ka cidna shaqo ku darsanaa aran soo hadal qaadin laakiin marka ay noqoto deedadan isagu witiisi u tabarla ama aan warba ka haynin ama cibaadadiisuna aan fiicnayn isaga laftiisuna uu ku mashquulsan yahay sharaabkiisii wixiisa kale ciyaartiisa ku mashquulsan yahay wala shirqool iyo waxa intaas oo galaya loo sameeyay marka halkaas aan caawa ku joojinaynaa wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi